إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadarooyinkan uga hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka qaybtana waxaan uga hadli doonaa biidhnillaahi tacaala waxa loo yaqaan axkaamul muftiriin kuwa afur axkaamta ku saabsan waxayna ka hadli doonaa qayb ah haddii qofku uu ku afuro iyadoo ay jirto sabab reebaysa inuu soomo al-iftaaru bisababi wujuudi maanicin lis-sawmi haddii qofku uu ku afuro iyadoo ay jirto sabab reebaysa qofka inuu soomo maxaa masaa'il arrintaasi ku jiro dhowr mas'ala ay arrintaasi ku jiro waxaa ka mid ah masaa'isha ku jiro al-ighmaa'u mir daboolanka hal huwa maanicun lis-sawmi qofka haddii mir daboolmaayo ma yahay mir daboolanka wax soonka reebahayo maxayna arrintaa culimada ka dhaheen masalada sida laba xaalad baa loo dhigayaayo xaaladda koowaad waxa weeyaan qofka haddii mir daboolmo maalintii oo dhan qofkan waa mir daboolmay maalintii oo dhan oo waaga bariyay ilaa qoraxda ka dhacday ayuu suuxsanaa qofkaas soonkiisa muxuu noqon hayaa maxayna culimada ka dhaheen xaaladda nooca marka ay tahay culimadu isku khilaafeen waxay yiraahdeen iqmaahan ama mir daboolanka noocaani ah ma waxaa lagu tirinayaa waxyaabo soonka diidahayo oo soonkiisa asixi maamiya la leeyahay ama ahayn soonkiisa uu ansaxayaayo waxyaabaha soonka diida lagu tirin maayo miyaa la leeyahay laba qowl oo mas'ala ku jira midka koowaad wuxuu leeyahay haddii qofka uusan ahayn mid soo niyeysay habeenkii qayb ka mid ah hadduusan qofka soo niyeysanin ee tusaale ahaan qofkii waa miir daboolmay habeenkii qayb ka mid ah soon maba niyeysanin qofka noocaasi ah soonkiisa ansaxa la dhihi maayo sababtoo ah niyadii baa la waayay oo marka iqmaas ama miir daboolinka wuxuu noqonayaa maanicun min as-sawmi soonka mid diidi buu noqon hayaa ama hadduu qofka niyeysay soon waagi intuusan barin ka hor kadibna uu suuxay maalintoo dhan qofka habeenkii qayb ka mid ah niyeysay inuu soomayo birito asigoo niyeysan ayaa waxa dhacday maalintii oo dhanba waaba miir daboolnaa soonkiisu uu ansaxayaa miir daboolanka noocaasi noqon maayo soonka mid diidahayo qowlka noocaasi waxaa qaba xanafiyada iyo shaaficiyada qaar ka mid ah waxayna daliishanay leeyihiin haddii qofka uusan ahayn qof soo niyeysay habeenkii qayb ka mid ah oo ay dhacdo marka maalintoo dhan inuu miir daboolnaado ama yacni uu suuxsanaado soonkiisa ansixi maayo oo markaa miir daboolinka waxaa lagu tiriyey wax soonka diidayo maxaa yeelay niyadii waqtigii laga doonayay lama uusan imaanin ama haddii qofku uu yahay mid soo niyeystay kadibna uu suuxay soonkiisa waa ansaxayaa walow maalinta oo dhan ba ha miir daboolnaade sababtoo xaaladda noocaani ah wuxuu egyahay bay yidhaahdeen qofkii hurdahayay maalinta oo dhan haddii ay dhacdo qof inuu hurdo maalintii oo dhan u hurdo hase haatee habeenkii qayb ka mid ah soon uu niyeystay soonkiisu waa ansaxayaa sidoo kalena waa lamid qofkii miir daboolmay haddii habeenkii qayb ka mid ah soon uu niyeystay maalintii oo dhan hadduu suuxsanaa soonkiisu waa ansaxa bay yidhaahdeen waa qowlka koowaad qowl labaad wuxuu yidhi qofkii miir daboolmaya soonkiisa ansixi maayo haddii maalintoo dhan uu miir daboolan yahay oo maalintii dhexdeeda marnaba uusan soo toosin oo soo miirsanin walow habeenkii qayb ka mid ah soonka haba niyeyso miir daboolanka noocaasi wuxuu noqonaya bay yidhahdeen mid soonka diidahayo qowlkan waxaa qaba maalikiyada xanaabilada waana almadhab cinda shaafici agtooda si madhabka ka ah weeyaan waxay leeyihiin soonka waxaa shardi in laga helo niye iyo ka tegid yacni in la niyeyso iyo wax laga tegahayo maxaa yeele xadiisku waxaa ku yimid lafdi ah yadacu dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatu min ajli qofku wuxuu ka tegaa wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa iyo wixii ay naftiis u baahneed aniga daraaday marka waxay yidhahdeen qofka miir daboolmay qof ugu tagay maaha alla dartii waxa aan soo sheegnay sababtoo ah duruuf baa ka reebtay dar alla uguma aysan tegin bay leeyihiin loomana qiyaas kari bay yiraahdeen qofkii maalintoo dhan hurdahayay sababtoo ah qofka suuxsan iyo qofku maalintoo dhan hurdahayay farqi baa u dhaxeeyay bay yiraahdeen sababtoo hurdada waxa la garanay bay yiraahdeen dareenka ma baabi'iso oo waxa dhici karta qofkan haddii laga kiciyo ama agtiis lagu qeylay ama loo dhawaaqa isla markaa maskaxdiisa soo noqoto ama qofkan suuxsan waxa dhicayso suuxsanaan sababteedii in maskaxdiisa ay aqligiisa uu ku tagaba oo wuxuu la mid noqonaa bay yiraahdeen qofka waalan oo kala مثلا marka waxa raajax qowlka labaad ee dhahaya
qofka hadii ay dhacdo maalinto dhan inuu suuxsanaadayo soonkiis ansixi maayo sababtoo waxa uu qofka uu eegyahay shabahaya dadka waalan qofka waalanna hada soonka ansixi maayo hadii marka qofka ay dhacdo inuu maanta dhan uu suuxsanaadayo soonkiisa ma ansaxayo marka xaaladda koowaad noocaas weeyaan xaaladda labaad waxa weeyaan hadii ay dhacdo maalintii dhexdeedii qofkii inuu miirkiisa soo noqdo maalintii dhexdeedii ayaa waxa dhacdayba qofkii miirkiisa inuu soo laabtay soonkiisa muxuu noqon hayaa culimada arrinta way isku khilaafeen xaaladiisa noocaas markay tahay soonkiisa ma ansaxayo ama ma ansaxayo qaar culimada kamid waxay yiraahdeen hadii qofku uu soo miirsano maalinta gelinkeedii hore soonkiisa waa ansaxaya walow maalinta inteedii kala haba suuxsanaado gelinka hore ee maalintii hadii uu yahay mid miirsan oo maskaxiisa ay caadi tahay soonkiisa uu ansaxaya maalinta inteedii kalaba haduu raba ha suuxsanaade hadii se uu suuxo ama miir daboolmo maalinta bilowgeedii maalinta aakhirkiina uu soo miirsado soonkiisa ansaxi ma bay yiraahdeen sababtoo ah soonkiisa inuu ansaxo waxa lagu fiirina waxa weeyaan maalinta awalkeeda hore inuu qof maskaxiisa ay joogto oo ahaado qowlka noocaas waxa qaba maalikiyada iyo qowl shaafici u sugnaaday waxay yiraahdeen haba dhacdo in maalinta awalkeeda inuu niyeystayba ama niyada xukunkeeda la helay waxay yiraahdeen qofkii soonka ansixi maayo ila waa ka bari inuu ahaado qof maskaxiisa ay caadi u joogto mooyee hadduu qofka marka waag u bariyo asagoo aan mar maskaxiisa aysan joogin wuxuu noqonayaa qof aan mukallaf ahayn xaaladda uu miir dabool yahay mukallafnimada uu ka baxay bay yiraahdeen qowlada mas'ala ku jira wuxuu leeyahay hadii ay dhacdo qofkii miir daboolmay inuu soo toosa qayb kamid ah maalintii ha noqoto bilowga hore ama aakhirka ama dhaxda meesha rabta ha noqotee qayb kamid ah maalintii hadii qofka maskaxdiisa ay caadi ku soo noqotay qofka asaga soonkiisa uu ansaxaya waa haduu soonka niyeysi habeenkii qayb kamid ah qowlkaasina waxa qaba xanaabilada waana sida asax ka ah shaafiicida agtooda xanafiyada saasoo kale ay yiraahdeen waxay xujo ka dhinay leeyihiin ninka noocaas waxa ku filin bay yiraahdeen soonkiisa inuu ansaxo wuu qayb kamid maalintiiba ka tagida ka asaxday maxay yeelay dacu dacaamahu lafdigaas umumkiisa ayuu soo hosgalay bay yiraahdeen waxa ku yiraahdeen mir daboolanka sidiisaba waxa weeyaan waa marad min al-amrad qofka inuu suuxo ama mir daboolmay waa cudurada kamid ah way yiraahdeen oo marka soonka reebi maay bay dhaheen marka waxa shardi ah bay yiraahdeen inuu qayb kamid ah maalintii ay maskaxdiisa caadi noqoto sababtoo ah waxyaaba soonku buriyo maxduuraadkiisa in laga joogo baal rabaa bay yiraahdeen shardi ah arrinkaasina wuxuu dhici karaa oo kaliya marka uu aqliga jiro haduusan aqli jirin arrinta ma dhici karta bay yiraahdeen mas'alada raajixeed wuxuu noqon hayaa in la qaato qowlka dhahaya qofka suuxsan hadii uu soo miirsado maalintii qayb kamid ah gelinkooda ha noqoto ama maalinta aakhirkeeda ha noqoto soonkiisu ansaxaya waxaase shardi habeenkii qayb kamid ah inuu soonka soo niyeystay culimada qaar waxay sheegaan oo ku daraan arrintaas iyada sida ibn Hazmi ibn Taymi oo kala qofka qalalay oo kala qofkan qalalka ama cudurkan qalalka qabay xukunkiisu muxuu noqon hayaa waxay yiraahdeen xukunkiisu wuxuu noqonayaa qofkii suuxinta ay ku dhicisi xukunka uu qaadanay oo kala sababta waxay yiraahdeen qalalka waxa weeyaan qofka oo macnaha mar ama si qof la ciijiyo ama qof suuxay oo noqon hayo oo waqti uu iimaan waqtina ka tagahayo waxa loo raacay bay yiraahdeen miir daboolanka asi wuxuu tagsiina bay yiraahdeen dareemaha oo maqalki ah ama aragi ah ama wax urinti ah ama wax dhiminta ah aqliga uu zuulina marka dhanka laga fiiriyo hasaatay asiga wuxuu kaga duwan yahay waalida iyadoo aqliga dhama ku zuulay Soomaan asi waalid lamid ma ahan qalalka wuxuu lamid noqonaa sida suuxdinta oo kala marka wuxuu lamid noqonaa beeraan si majnuunka oo kala majnuunkana wax qado oo laga rabo ma jirto waxa kale oo ay yiraahdeen qofka miir daboolmay inuu salaada qadaa waajib kuma beeran si raajix ah soo kale inuu qadaa waajib kuma noqonaysa bay yiraahdeen waa qowlka koowaad qowl labaad mas'ala ku jira wuxuu leeyahay qofka inuu qadaa waajib ku ah qofkii miir daboolmay ee u surugal weeysa maalin ramadaan inuu soomay inuu qadaa waajib ku maalinta iyada qowlkan waxa qaba jumhuurul ulama waana sida mashhuurka ka ah afarta madhabood oo waxay leeyihiin miir daboolanka waxa lagu tiriyaa xanuun qofka marka miir daboolmay wuxuu ka baxay bay yiraahdeen xaaladii awoodda uu lahaa iyo caafimaadka uu lahaa wuxuuna u baxay bay yiraahdeen xaalad oo dacfi liito iyo xaalad maxaan ku yiraahdaa uu jiran yahay bay u baxay bay yiraahdeen qofka waxa xanuunsiya tusaalahan xanuunkii qabtay dartii ayaa waxa dhacday in salaada waqtigeeda uu baxay salaada inuu qadeeyo ma waajib ku ah ma waajib kuma ahan culimadu isku khilaafeen laakiin waxa fiican inuu iska qadeeyo hadii mar uu caafimaado waxa fiican oo la rajaxaya inuu qadeeyo
saasaan axwad ah saasaana fiican walaalayaan mas'ala kale oo gudbayna oo ah haddii ay dhacdo qofkii soo inuu niyeyso kadib maalinta oo dhan uu hurdo qofkii waaba soo niyeysay salaad subaxeed markuu dukaday ilaa qoraxdii ka dhacdaba marnaba ma soo toosin hurdo buu ku sugnaa soonkiisu muxuu noqonayaa culimada arintaas laba qol bay ka qabaan qolkooda wuxuu leeyahay soonkiisa ansixi maayo inuu qadayna waajib ku ah oo waxa lama horaan bay yiraahdeen inuu qofkii maskaxiisa ay soo noqoto hurdada ka tooso walow wax yarba oo maalinta kamid ah noqoto waxa qolkaasi qaba shaafiicida qaar kamid ah waana waj xanaabila u sugnaaday waxay leeyihiin soonku waa niyo wax la niyeysanayo iyo wax ka tagid weeye qofka maanta isku hurdayni baa la helay laakiin ka tagi lama helin bay yiraahdeen hadduu soo jeedo oo cunida ka tagay waxbuu ka tagay la dhihi la Soomaan saarta marka tagi laga miyay bay yiraahdeen soonkiisa ansixi maayo wuxuu la mid noqdaa mumaalihi bay yiraahdeen qowlka labaad mas'ala ku jiraan wuxuu leeyahay soonkiisu ansaxaya shardina ma ahan maalintii qayb kamid maskaxiina soo noqoto qowlkaasna waxa qaba jumhuurul ulama waana midka raajix oo waxa la leeyahay qofka hadii maalinto dhan uu hurdaayo soonkiisu ansaxaya shardi ma maalintii qayb kamid inuu soo tooso salaadii iyo wixii uu ka tagayna uu qadayna waa laga rabaa mas'ala kale arinta raacsan waxa weeyaan qofkii majnuunka oo waalna maskaxiisa dib u soo noqoto ama ay dhacdaba qof gaal aha inuu muslimo ama ay dhacdaba anu saqiira inuu qaan gaaro wixii maalin soonka dhaxdiis ka tagay inay qada waajib ku tahay waxa dhici karta qofkan waalan soonka maalmo markay dhaafeen 5 bir ama 10 bir ama wax lamid ay gudbeen in maskaxiisa caadi ay soo noqotay ama qofka inuu muslimiin bishar Ramadan dhaxdeedu oo 10 bir ama 5 bir ay dhaaftay ama canugii yara inuu qaan gaaro bishar Ramadan gudaheeda ku qaan gaaray wixii maalmo oo ka tagay inay qadayaan waajib ma ku tahay musamo ku ahan maxay culimada ka dhaheen mid ugu horeyso waxa weeyaan hadii ay dhacdo qof gaal ah inuu islaamnimada qaato waxay culimada muttafiq yihiin oo ay kamidin al-aimmatul arba'a oo dhaxdoodan ay khilaaf ka jirin illa wax shaad noqdo mooyaane qofka asaga ah inuu qadeeyo waajib kuma ah maalmihii ka tagay bishii Ramadan oo 20 maris ayuu qof gaal ah muslimay oo islaamada soo galay 20kii maalmood ku dhaaftay qaday la dhihi maayo waxa la leeyahay 10 kan biro ku dhiman ama dhowr kan biro Ramadan ka dhiman soon baa la leeyahay sababta waxay leeyihiin gaalnimada waxa weeyaan waa mid diidaysa soonku waajibnimadiisa oo shuruudu soon markan ka soo hadlayni waxaanu soo marnay waxa kamid ah qofka soomay inuu muslim yahay oo islaam inay shardi tahay mid labaad anugu yar haduu qaan gaaro culimada intooda badan oo aimmatul arba'a kamid yihiin anugu yar haduu qaan gaaray inuu qadeeyo maalmihii Ramadan ka tagay intuu qaan gaarin ka hor waajib kuma ahan Ramadan dhaxdiisa ha qaan gaaro ama Ramadan kadib ha qaan gaaro meesha rabta ha noqoto sababtoo ah waxay leeyihiin markii horeba ehel uma ahayn inuu soomo qaan gaarid ka hor qofka ehel uma ahayn inuu soomo sadarta marka inuu qadeeyo waajib kuma ah bay leeyihiin mas'ala saddexaad waxa weeyaan qofkii waalna hadii maskaxiisa soo noqoto maalmihii uu waalna inuu qadeeyo waajib ma ku tahay mase waajib kuma ahan arintaas iyada culimadu isu khilaafeen qolo waxay yiraahdeen maalmihii ka tagay inuu qadeeyo waajib ay ku tahay qofkan waalan hadii maskaxiisa ay soo noqoto oo ahaan qof qaan gaar xilligii uu waalna waxa waajib ku ah inuu qadeeyo waxa ka tagay hadii raban sanooyin ha noqdaan 10 Ramadan doorba ha noqdo wixii doonto ha noqoto inuu qadeeyo waajib ku abay yiraahdeen qolka koowaad waxaana qaba maalikiyada waana si mashhuurka agtooda riwaaya Ahmed bin Wasaaba laga wariyay waana waj shaafiicida u sugnaaday oo waliba shaad ku ah shaafiicida agtooda waxayna leeyihiin waalida waa cudur الله سبحانه وتعالى وحيري فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قفك حنونسا وهذيك إذا كمد أما قفك مسافر هدي أو حنونك درتي أو صنك ودايو أما سفر كان أو كجر درتي أو صنك ودايو ما المكر إنه قضي واجبك بيرادين سادرت منك قفك وعلنا إنه قضي واجبك ما دام أو أن كترين بيران قف جرن أو كلا أن كدقينه قول المسألة كجرا وحول ليهاي قفكو والله هدي مسكحي سون نقطاي وان فيرينينا 5 سنة هدي كيرتهاي انت او والنا اما قضيه laga rabo 5 sano si qadee baa leeyahay sanooyinka oo walna haday aad u farabataanana wax qado laga maraba buu leeyahay qolka waxa qaba maalikiyada waxayna leeyihiin qofka inuu qadeeyaay dib bay ku tahay sababtoo ah soon baa ku batay 10 sano hadii laga rabo ka waran 10 soon baa leeyahay oo ku dhibtoona Soomaan قول صدحدا مسألة كجرا وحو ليهاي قفكي والنا hadii maskaxdiisa soo noqoto bisha Ramadan gudaheeda wixii bisha Ramadan ka tagay inuu qadeeyo waajib ku ah bishaas kaliya wixii ka tagay 10kii biri ama 5tii biri bisha ka tagtay inuu qadeeyo waajib ku ah wixii inta ka soo inuu qadeeyo waajib kuma ha yiraahdeen qolkan waxa qaba Xanafiyada
وأنا ربا أحمد لوري يوجه شافعي أسمنادي ووحي ليهن وحا الله لي بيرهدين بشهر رمضان إنه صومين كواجبتي فمن شهد منكم الشهر فليصومه أي الله يري سبحانه وتعالى قول أفراد مسألة كجرا وحو ليهي qofka noocaas oo waalan haduu soo mirsaayo wax qada laga marabo mutlaqanba biliyo dhan laga maraba ama bishii ramadaan gudaheeda doo soo mirsaday oo aqligiis dib u soo laabtay wixii bishii ramadaan ka tagay inuu qaday laga marabo waana sida madhabka Shaafici agtooda iyo madhabka cinda Xanaabila waana mid uu raajaxsano oo waxa la leeyahay qofka inuu qaday waajib kuma ahan maxal leeyahay qofkii waalna maba ahayn qof lagu la halahayay soonka inuu guto sababtoo ehl buu ma ahayn saadarta inuu qaday waajib kuma aha ayuu leeyahay qowlkaas ugu dambeeyo kaasana raajix ah oo waxaan leenahay qofka waalan hadii maskaxiis dib u soo laabatay intii soon ka tagay qaday la dhihi maayo wixii hada taagan ayaa soonkiisa ka bilaabanaya hada wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh